مدحوين أيام كسوع على التسلا وجدًا بقى حسين أحمد فقي شرحي وعطاء ما بقول يا سلام وحكى الميري وسلام aad baan u salaamayna madaxweyne madaxweyne xuseen axmed fiqi oo iminka soo caga dhigtay howlka loogu talagalay ee martida soo dhawow kaliya laab dadkii jaaliyadii guud ahaan ayaa iminka iyadu timid yaa salaam injineer axmed saal yuusuf sheekeeye ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta oo wadid in ay ka duwan tahay yaa salaam soo dhawow kaliya laab maasha allah صورة السوشيال ميديا وصوت قريب المشاهدين وصوت قريب هذا بالمركز ويوم
فالأرق بلدي مدن بعد وين إيوه قلدقو بلدك كم تعير إيوه بلقى حولها كله فالأرق فالأرق بلدي مدن بعد وين إيوه قلدقو بلدك كم تعير إيوه بلقى حولها كله فالأرق وياي لما أكسر الجرياش المناسبة لما نجي نقول مرة أولى صباح السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتهم الله برارين حتى لما نروح لكام بليل يا سيدي نسوا أجيت المناسبة لهذا التعاوى أنا أقول في حق الإسلام مشاكل عن شركة ورجال أنا من غضون المعني إن شاء الله. وحنا نروح بليل يا تمام رسول الله شخصية شيء جميع حفلة مخبوها وشلها قلوب كل مستي قدر كهات من جوجل السوق قال اسمه تيدي بس قولك إلهي القرآن كأمر لونه وعمله إلى ياسين الأخوة إلى القرآن الكريم كأ محمد اسمه الحاجي وليتفضل محمد ودين محمد يسولوه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. البقية الفاتحة إذا جاء يدها إلهي أود والسمن الله إنه وفعها يدها غراك وإنه آخرية مدن محمد عثمان حاج محمد marka ugu horeysa anigu ku hadlayna maamulka soo qayb galayaasha munaasabada sida habsamida hanaanka iyo hufnaanta laga soo qayb galay waxaanu idin leenahay inaga godoona hambalyo iyo salaan diiran inaga godooma waxaanu hambalyaynayaa bahda saxaafadda oo hogaaminaya kuusow waxaanu hambalyaynayaa social media iyo solo saaxiibka solo waxaanu hambalyaynayaa bahda suugaanta oo ay hormuud habeenka caawa u tahay muna diyaana waxaanu hambalyaynayaa bahda fanka iyo suugaanta sida gaarka ah waxaanu hambalyaynayaa Maryam Mursal Ciise Botan oo iyadu muddo dheer loo soo halgamaysay habeenka caawana barnaamijka laga qayb qaadan doonta waxaanu hambalyaynayaa bataankeeda kale ee Nuur Cadde Wasuul caawa barnaamijka laga qayb doonta waxaanu hambalyaynayaa qaybta DJ aniga farsameynaya waa Muridi waxaanu hambalyaynayaa Muridi iyo Maxamed iyo Mustafa iyo Musa iyo habeenka caawa dhammaan baa lagu leeyahay dhinaca gabdhaha waxaanu hambalyaynayaa dhammaan gabdhaha iyagu sida habsamida uga soo qayb galay munaasabadeena waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa gabadha iyagu isgaarsiinta igala shaqeysay ee farxiyo ku jira ayaanu hambalyaynayaa waxaanu hambalyaynayaa gabdhaha kale iyagu waxaanu hambalyaynayaa bataanaha hawshan isku soo duubay ee warsada iyo marwadiisa Shukri Musa hadda sidee tahay
دوغون بيسل ما تاني نفتح روحهم باليريا حتى إيوه حسين إيوه على دموتلان قفل مو حسين دون قدر دخل هذا أنا ودر هذا كان ملوك همبريو هذا كان يرى ما يفهم كيف السوية مستقر دوم السويسة همبريو يدعو وعفو بلابيا ودر نواس إسلام حاج محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خيارته حفلتها كسو غيب شيء مدريال يمروين نوع كستيهين ونقمين سياسيين ururada bulshada haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam sida uu sheegay jaalahay maxaan ku sheegay sahal waxaan aada iyo aada uga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo qadarinta iyo maamuuska leh ee aada u ajiibteen ugana soo qayb gasheen dacwaddii laydii soo gudbiyey ee ku saabsanayd soo dhaweynta musharaxa madaxweyne sanadka 2019-2024 injineer xuseen axmed xasan fiqi aada iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. waxaa kaleeto mahad balbalaa ilaahay baa mahadle baan mahad kale u celinaynaa. waxaa weeye dhammaan waxay ahayd hanaqaad ay noqoto maanta ay noqoto inta ay joogto in ka fog inay gaarsiisan tahay bay ahayd. laakiin nasiib daro saluug badan baa jira oo hoggaanka xaggiisa la xiriira. mu'arikhiintu waxay yidhaahdaan bulshada Soomaaliyeed ama Puntland markay tirakoob sameeyeen waxa weeye 7% waa dhalinyaro. macnaha ruux baa wuxuu yahay dad waayeen 3 meeloodna waxa weeye waa dhalinyaro. marka haddee waa khasab markaas dhalinyaro shilku soo duulaa dhalinyaro in hadda loo raadsayo nin dhalinyaro ah oo saan qaadi kara oo murashax oo hoggaankaas qaban kara oo shuruudaha loo baahan yahay hogaamiye looga baahan yahayna buuxiya dhalinyaronimo keliya maaha xag aqooneed xag wadaniyadeed xag ammaano xag cadaaladeed. waxaan markaa anigu is leeyahay aqoontaan u leeyahay injineer xuseen axmed shuruudahaas wuxuu ka mid yahay inta buuxin ka dhah. oo mudan in maaragtay uu noqdo hogaamiyaha Puntland sanadaha soo socda.
intaas haddii maxaan ku sheega aan kusoo gabagabeeyo soomaalidu waxay tidhaahdaa ama dhalinyaradeenna soomaaliyeed oo maxaan mareguurkaan waxay yidhaahdaa way ku halqabsadaan ama iska badaa taas waaba ka boodayaado mar hore aniga maxaan ku sheegaa ku noqon maayo waxaan kusoo gabagabaynayaa maadaamuu yiri maxaan ku sheegay ninka hoggaanka inoo hayaa caawa in la soo gaabiyo hambalyo waxaynu ha ku ekaato haddii waxaan u hambalyeynayaa musharaxa madaxweyne iyo dhammaan inta soo ajiibtay iyo inta kasoo qaybgasha caawaysa soo dhigtay waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay ugaas cismaan xaaji maxamed oo garanaysaan sidoo sheegay ugaasku waxaan leenahay cali cilmi afyar wuxuu yidhi ama waa magdhow iyana maad celisahay dhammaantiinba waxaanu leenahay kulantii waxaan oo wanaagsan aad baa ugu mahadsantihin kasoo qaybgalkiina waxaan si gaara u salaamayaa abwaanada caanka koronto iyo habeenka caawa masraxa fadhida oo abwaanada soomaaliyada waxa aanan halmaamayn saaxiibkay aniga qaali ugu ah mustafa suleymaan darwiish ويسمونا أخبار إسبوع وهجاميها إسبوع كذا وحسلام يا ولد ياسين محمد بغوري سوريا ياسين محمد بغوري فرتم عمر بغوري اسمان خالد اسمه ويا كسوقل يا أنا مودي نقول وكنا غادي وحسلام يا صاحبك السعيد محمد علي وسعيد وسيرقام قدومية شون يقدوميها قبل كا وكسوتشينو فرح فغيره وقردفوله قولوا وكنا غادي وحبيك عاول والله وكنا هريب وحصلنا يا صاحبي فوز فارح وتضبط اسكو سو وجيدونه وحصلنا يا بعد هوغانك وهيسا جوعا وانو تضبط كسو سرير دونه وافاري نكنا يراهدون فكر ما بدل اوقات فنيه وما كان هاي وتضبط 4 5 جمعه سبت احد اثنين نفوري بقى نسيب كده كنا حدود الله قبل كده قال يقولوا وانا تجي هذه يقولوا يراهدو وياي marka wuxuu dhimaya caaqilka odaga habeenka caawa وانا وضع هيك وفع وين وهذاك عاوز يسوي جول كما يمي لكن يلا كهري وعمر حاجي محمد وعمر فاسق سلوك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مرد اللي يرينك هو يمك وعيلتها وحبيبي ما يالينا وين الدعاء صوت سوينا ورموا ما هو وحشه مركا من وما في المركا صو ما عين وحان إلهي كرجيني يا هرتين وإلهي التوفيق إن سلسيو وحا يدون إنه وناقانا إنه أجيبه بان إلهي كبريان أنا وكالتو وحويان إلهي محيي بني آدم كوحا وفي عمان كابوري هذا هو وحا يقول لقنا يعني وحا وفر صوما هذا فرحمد المجارين أنا أقول لك لكن سيدتك يوحي واسكا نعم عمرين يا ما شاء الله الحمد لله إلهي ما قم هذا علينا إياه سجى ما قرنت وقت جيسية وحندين شيء جيا أنا وكالة وبنيك وحبر ربي وبوزيشن دونين وجعل وضن كيس يدد كيس إني في عنادان وحيكون منتهي إلا دقيشتو هدي وحفي عن لقاه لا إلا خاط وحندين شيء جيا أنا وصدق حديد دولة دول وكهر ريي بربر كان ولا سفر دولتي هوريتو أو تريانية بليس بانكا دولتي سيفل كان وحنكاها ميليتري وحاني شيء نمبر كي بليس كوحها صدح كون يتضم بقول يتضم يتضم نمبر كي مركي ميليتري يلا كلا ساري كون يسقال بقول iyo sagaal iyo kontonkii bishii December 20-keedii ayaa lagu dhawaaqay la kala saaray moogta wax la yiri military baa la sameeyaa wax la yiri wax la sameeyaa military-gaas oo ka kooban inta unity yani kambaniyad gaalkacayo baydhabo kismaayo ilaahay kiismaasha beled weyne iyo kaaristi oo bootika
كارثة يعني لينت كوسات أنا وكارثة سامع markii ciidanka militariga la asaasayna markii la siiyay askarinimada wuxuu ahaa 129 balka warrama marka waxaan xogogaan u ahay dawladii sibilka ahayd iyo tii isticmaalka inta ka soo gaaray oo booliiska ka ahaa iyo intii kacaanka aan ku jiray oo intii horena aan askari ka ahaa intii dambeetana aan sarkaalka oo aan ka soo baxay 64kii ciidamada badda dadkii lagu asaasay baan ka mid ahaa ciidamada badda dadkii lagu asaasay baan ka mid ahaa ciidamada cirkana waxaan ka soo baxay ilaahay ninkiis 71 baan ka soo baxay ciidamada cirka kulliyadda ciidamada cirka kulliyadda ciidamada badda iyo akademiga siyaasadda saddexda kulliyadood baan ka soo baxay soo ciidamadiina aqoon ma lihi 7 sanadood diblomaatna waa leh khibrad baan hayaa waxaan idin sheegayaa Soomaali ay markaa idin leeyahay maaha intiin inta yaroo meesha fadhida ee waa inta maqli doonta codkayga waddankan dadka u dhashay waa idinka ishaya oo baktiga ah oo aan bini aadanka ahayn oo waddankan fiican dadka u ah waa idinka haddaydinaan waddankiina u soo jeedsan oo waddankiina waxa aad u baahan tihiin aydinaan dantiisa yani u dhaqaaqin soo waddankiinu cidlo ku soo dhici maayo la qaadan maayo waxaan rajaynayaa dhallinyarada wax bedesha waxaan aad ugu faraxsanahay ninkan hadda Xuseen Axmed wuxuu ka mid yahay ma oranayo isaga baa yani brilliant oo number 1 oran maayo laakiin wuxuu ka mid yahay dhallinyarada himilada leh ninka himada leh oo maaragtay ambitionska ah oo doonaya inuu wax qabto waa la taageeraa waana loo duceeyay marka wuxuu mudan yahay maanta haddii uu u yahay ummadda Soomaaliyeed يعني خليفة نقولنا إله وكوه عليه بنا وإله وسهل بنا ما شاء الله ما شاء الله وكل عقبوني هذا السيد ما جرى كذا مش العقبة الوضم كان ولا عقبوني ما له سكوا بنا وحنلانا هاي Soomaali intii natani waxa weeyaan intii waxa u maleynaya intii wax baratayna lahaydeen dad badan oo maaragtay waxaan ku hadlay oo militariga idin sheegay marxaantigii baa ay fadhiya nimankaan ay marxaantiya waxaan kulliyadahan sheeganayo iyagaa marxaantiga way yaqaan naaquuda la yidhahdaa naanaystay magacayga isuma oqon ilaa la jabay oo la ba'ay oo la oogay cumar soo wallahi maa naaquuda marka la yidhahdaa soo jeedin baa ilaahay buu dowladnimadu waa sharaf dhulkuna waa dahab hadda waxa lagu shiraya garow inaguna waxaynu matalaynaa Puntland garowada waa meeshii lagu asaasay in Soomaalida isu keeno waxaan ka codsanayaa oo fiidiyahaas waxaan jeclahay inaydaan iga tirin nimanka halkaa ku shirayo madaxda ay maayo ceebna u diri maayo ceebna ma laha waa mas-uul Soomaaliyeed laakiin waxaan qaba yani anigoo odaya anigoo Soomaaliya anigoo Puntland waxaan ka codsanayaa Soomaali inay kala geyn isu geeyaan oo khaliif u noqdaan baan ka codsanayaa qolada xamar madaxda ka ah reebayn maayo waxba ka sheegi maayo laakiin waxaan ka codsanayaa inay Soomaali isu keenaan inay kala geyn wariyaa leeyahay islaam waxaan jeclahay nimanka dhalinyarada ah inay u tanaasulaan dadkooda inaan laga fikirin berri waxay noqon doontaa ninka hadda haya ilaah Allah inuu noolaanayo inuu dhimanayo laakiin waa in laga fikiraa ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeeda iyo dadka iga raalli ahaada haddaan ku badiyay waa iga raalli ahaada
xuseen waxaan kusoo dhaweynayaa himiladaa uu leeyahay in lagu taageero oo magaranaysa isagu magaranaysa ilaahay laftiisa haddii uu khayr inoo qabo in ilaahay ku quweeyo oo la siiyo oo ilaahay uu noqdo baan ilaahay ka dhigay sidii aan horeba u waxaan magaranaysaa ilaahay laftiisa nin kasta oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo istuhmaya inuu u noqon karo khaliif ummadda tabar loo baahan waa inaan gacan siino laakiin odagu waa inaan isku gudbin waryaynaan isku gudbin dhalinyarada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الرائعات. وياي ده حال سويد ولا دولة يا سعودية تكمل وما يروح يحسوا عليه وما يا هذا هو يشتي شغل كم قسان بس هو سدعي هاي أو عندنا وما يحسوا سويد ما عندنا ولا في الجماعة ويا سو من هذا يقول يا وياي بدو كذا قاعدين وحاليا ما كانوا دي بيعزيها قدر الصلاة قبل لكن سبب أو ما يا حاجة ولا يدرينا يمكن لكن نوضان بدو كذا قاعدين واحد يا قبل باشا يودي ويا مسألة كوسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا إلي أهدف تحرك السيو أنا بدو غاديو زين أحمد جدا يهور وإليك مرجع إن شاء الله تعالى كل من ليس وحب أولا تغيره من أصل أمورنا زين أحمد وافق غيرنا جدا قررنا إن شاء الله أن تريد عيننا من إلهي فوق غيره وهي أجمع ما تيجي كذا كذا لها أو مركز وقوقات وقتيسة عمل وسائل وقفة المسلمين والمالية نحن باشا أجمع ما تيجي وهي من إسرائيل هي صباح هي هذا سنتي إسرائيل سنتي مغادرة من كان يكونوا حلو مثلا ومن عبد السلام ومن الخلود waan ku rajaynaynaa in dhalinyar baa tahay qofka dhalinta yarna inuu himmo leeyahay waa fiican tahay himmo caaliya inuu leeyahay himmo sare ayaa waa kugu hambaliyeynaynaa waa kugu soo dhaweynaynaa waa kugu taageeraynaa
laakiin haddee tartankaas annagu dadka iyaga halka fadhiya iyo kuwo badan oo waddankii jooga midka yana codayn mayo 66 qof baa codaynaya 66kaas baa codaynaya wax dooranaya waddankiina waxaa ka socotaa la yidhaahdaa Soomaaliya guud ahaanba lacag waa ninkii lacag badan haysta iska qaadanaya isagoo ahayn kii u daacadsanaa isagoo ahayn kii u fiicnaa isagoo ahayn kii u wanaagsanaa buu lacagtaas ummadda ku seexinaya adigu hadda nin dhalinyar baa tahay oo malaynayo inaad lacagaad ku seexiso wax wadatid laakiin daacadnimadaada iyo dadaalkaaga iyo ehelnimadaada iyo dalkaaga jacaylkiisa baan rajaynaynaa inaad wax ku heshid oo meel ku martid sidaas ayaanu kuu rajaynaynaa waana ku salaamaynaa waana kuu ducaynaynaa ilaahay oo hadduu khayr ay u tahay darajadaas uu doonayo ilaah u fudude hadday khayr u ahayna ilaahay oo ka maana intaasaan anagu leeyahay intaasaan kusoo koobayaa tartan baad qadelaysaa adag allah kuu fududeeyo wixii khayra asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ويعني أدوم هذه لما مضياش هي وسلاها صمدها هذاك عاون ولا هو جريا نحن مرينا لما نزلتي وسلاها صمدها هناك يوفنات لو سوق بالمناسبة لنا كرر والوصال مرة كما قلت هاي مش ومش واسكع إلا مسرح مقام مايه مريم موسى بن عفان يوسف سيدا يا سلام ومريم موسى عيسى عمك يوضو قادنا اسم ميكروفون كاب عيسى وجل مريم يوابلا لما مريم يوابلا يوابلا ويسوس horta waa salaamadii kulligiisa u dhantihiin anigu waxaan hooyadii kusii doon markii la yidhaaho madaxweynaha soo socda ama madaxweynaha jooga waa arrinada ugu jecel waa sariirta kasoo istaago inta kale sariir baan joogaa caawa markii madaxweynihii mustaqbalkaa soo socda ayaa sariirta kasoo kacay ayaalka dawladna farmaajo markuu jooga ay ugu dambeysay sariirta markaasaa kasoo istaaga mar walba waa ku noqdaa markaan rajadii sidii aan moodaya ee lagu weyn marka caawayto waa ku soo dhaweynayaa madaxweynaha mustaqbalka Mr. Xuseen nin walba horta meeshuu ku dhashay baa la wanaagsan aniga adduunka waxaan ugu jeclaa gaalkacyo horta gaalkacyo iyo maaragtay iyo kulli gobolada horta laakiin gobolkayga ugu horeeya baan idiin qaadayaa heesta marka idinkuna raalli ahaada horta anigu magaaladayda gaalkacyo aan ka dhaco ee yameeska iyo adduunka markaan sheego baan idinkana idiin sheegi doonaa kulligood kusoo dhawaada
keliya ma weydiinaya moogta soomaali ceeb u diida ayaa igu xigtoon aad u jeclahay marka haddana waa soomaali ceeb u diida ilaahay hana garansiiyo 30 sano ku heesayay ilaahay ceebtii aan saas u sii galnay إلهي كوي نبض إلهي قرسي الله نقدر هذه أنا كيا سريت أنا مسوي استعمال الله كاري كيس